السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وأنا ونسون دعوة halkani iyo dhanbaalka dunida ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka galabnimo maanta oo Sabtida taariikhdana ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar sanadka 2024 qodobada xiisaha leh barnaamijkan galabtaan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta doodada ka yeeshay xilka qaadis ay ku sameeyeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac dooda baarlamaanka ayaan dawadina halkan ku soo gudbidana qodobada kale ee barnaamijkan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona maleeshiyad hubaysan oo dadka deegaanka ayaa weerar ku qaaday saldhig ku yaala degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayagana halkaas ku diray maleeshiyad fara badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab warbixin ayaa dawadina ka helaan qodobada kale barnaamijkan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona markabka Orag Ra'iis oo ah markab shidaal baarisa oo leeyahay dalka Turkiga oo la filayo inuu soo gaaro xeebaha dalka Soomaaliya qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaha oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaa dawadina ku soo gudbidina barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo intuu hawada ku jiro soo saarista tabinta wararka Daahir Abshir Xasan fadlan waxa ku xusuusina daawada ku xusubtay YouTube-kana dhanbaalka dunida subscribe saartid sidoo kale page-keena Facebook ee Leaderman iyo sidoo kale baraheena bulshada u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan agaag daawadayaal aan ku bilaabana barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si weyn kaga doodan in xilka laga qaado ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa markaas codsaday in la buuxiyo xubinimada iyo sidoo kale kursiga Saalax Axmed Jaamac maadaama uu soo xadiri waayay fadhiyada kala duwan ee baarlamaanka Soomaaliya sidaas darteedna markaas ay haboontahay in booskiisa la buuxiyo isla markaana lagu bedelo qof kale golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya si weyn kaga doodan waxaana intooda badan ay ka soo horjeesteen xilka qaadistan lagu sameeyo Saalax Axmed Jaamac iyagoo sheegay in arrinkaas aysan markaana habboonayn isla markaana ra'iisul ku-xigeenku uu hayo shaqooyin kale oo markaas qaranka oo aad iyo aad muhiim ugu ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegay in markaas arrintaasi dib loola laabtay oo ay dib u dhigeen mooshinka ka dhanka xilka qaadista ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac asagoo sheegay in shaqooyinka kale baarlamaanka ku yaama la sii wado arrinkaasina ay dib uga soo fiirsan doonaan isla markaana dib codayn kale loo qaadi doono markaas in xilka laga qaado ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac وهاجر دعوة يلا بالمركنا هدينا مليشيات dadka deegaanka hubeysan ayaa la soo warinayna weerar ku qaadeen xabsi ku yaala degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab weerarkan maleeshiyaadka ay ku qaadeen halkaas ayaa la soo warinayay inay ku qaraajiyeen laba ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo wardiye ka hayay afafka hore ee xabsigan la weeraray maleeshiyaadkan ayaa ka carooday kadib markii ururka Al-Shabaab ay burburin ku sameeyeen deegaano iyo dhul markaas lagu muransiyo ku yaala gobolka Galgaduud sidoo kale maleeshiyaadkan ayaa la soo warinayay xabsi ay kala bixeen dad ay ururka Al-Shabaab ka soo afduubteen deegaanada u dhow gobolka Galgaduud kadib markii ururka Al-Shabaab iyo dadka soo kala dhaxgalay muran markaas ku aadin xagga sakawaadka iyo sidoo kale awaamir ay ku soo rogeen waxana dadkaas ay ka biyadeen awaamirta ururka Al-Shabaab ay siiyeen ayana ugu dambeyntii ururka Al-Shabaab ay dadkaasi ku xirxireen xabsigaasi waxana tan ay sababtay in dadka maleeshiyaadka ay isbaabalan kadibna ay weerar ku qaadaan xabsigaasi ayagoo ugu dambeyntii dadkii halkaas ku xirxirna ay kala bixeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ay halkaas ku sugnaana ay ku laayeen ururka Al-Shabaab ay hadda imika la soo warinayeen dadka deegaanka ay ku cadaadinayeen in maleeshiyaadka soo warinay ay soo bandhigaan isla markaan dadka laga baayay xabsigana ay keenaan dadka deegaanka iyo xaaladooda ayaa imika xaaladooda kacsan tahay waxaana la soo warinayaa saansaan colaadeed oo markaas u dhaxaysa dadka deegaanka iyo ururka Al-Shabaab wadayaal ugu dambeyntiina markabka Orag Ra'iis oo ah markab shidaal baaris oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa la filayaa in maalmaha soo socda soo gaaro xeebaha dalka Soomaaliya markabkan ayaa toddobaad ka hor ka soo ambabaxay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga halkaas oo ku soo gootiyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo sidoo kale wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya markabkan ayaa markuu soo gaaray xeebaha dalka Soomaaliya waxa uu markaas shidaal baaris ka sameeyay saddex goobood oo loo asteeyay inuu markaas shidaal baarista uu ka sameeyo kadibna macluumaad kalkaas uu ka ururiyay wuxuu dib ugu celin doonaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga taas oo sahli doonta markaas Turkiga uu si fudud ku bilaabo shidaal baarista Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii May ee sanadkan waxay kala saxiixdeen heshiis shidaal soo saarista oo markaas meelo cayiman oo kamid ah dalka Soomaaliya laga sameeyo iyadoo markaas Turkiga umminka u muuqdo inuu soo saarayo shidaalka markaas dalka Soomaaliya iyo sidoo kale inuu hirgeliyo heshiiskii dhinaca tabarta ee Soomaaliya iyo Turkiga ku dhaxmaray bishii May ee sanadkan sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku tilmaamtay mashruucaani shidaalka Soomaaliya lagu soo saarayo mid aad u weyn isla markaasna faa'iido badan u leeyahay dalka Soomaaliyeed wax badan ka tiri doona dhaqaalaha dalka Soomaaliya guud ahaan inta saan ku soo gudbina daawada barnaamijka falanqaynta wararka galabnimo soo saarista timinta waxaan aniga Daahir Abshir Xasan fadlan waxaan xusuusinaa daawada YouTube-kana ku xusida dhabaalka dunida subscribe saar sidoo kale page-keena Leaderman iyo sidoo kale baraha bulshada tan iyo barnaamij aan ka kulmi doonno waxaan kaga tagnaa daawadayaal. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.